wasaaradda dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeeda ee Puntland ayaa waxa ay ka warbixisay khasaaraha ka dhashay markab yar oo nooca shidaalka qaada kaasoo habeennimadii xalay ku gubtay gudaha dekeda Boosaaso. shir jaraa'id oo wasiirka wasaaradda dekedaha ee Puntland Siciid Maxamed Raage uu ku qabtay gudaha dekeda Boosaaso ayaa waxa uu uga warbixiyay khasaaraha ka dhashay iyo wixii keenay gubashadiisa. shalay baa markaa waxa dhacday waa meel la wax ka wado in markaa dekeda gudaheeda la soo geliyo maadaama uu markabkii maraabaynayo ayay mashiinka shaqeyn kari waayeen. waa sidaan warbixinta ku helay anigu garan waan ka imi hadda soo galay laakiin warbixinta waa saas ka bacdi dekedii markii lagu soo xidhay mashiinkiisu baa wax ka dhashay sparks ka garanaysaan gaadiidka baddu wax ka hawl badan oo maraabayntii iyo mashiinka adigu dhibta wax ka dhacday dhinaca mashiinka runtii shaqaalaha dekeda Boosaaso ciidan iyo shaqaale labadaba runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iyo maxaan ku raahdaa waalidada dekeda waxay ku galaysan ka saaraan way saareen ka bacdi say doontaba ha noqotay dekedii aad iyo aad baa looga fogeeyay waa maqaadirta dhacday weeye waana wax lagu guuleysan waa in la damiyo markabkaasna markii hore soo kulmayso lagu talagalay baa laakiin wax khasaaro oo dhacay haba yaraatee oo dushiisa saaraa ma jirto haday naftahay iyo haday mootaylada. Maxamed Raage wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeeda ee Puntland waxa uu kaloo sheegay in ay wadaan dadaal ay ku doonayaan sidii ay mustaqbalka wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka midan la mid ah ee soo wajaha gaadiidka dekeda ku soo xirta. anagu dadaalkaas waa wadnaa waa noo socdaa insha Allah shalay xitaa Garowe joogay waxaan ka hadlayay sidii arrinta badbaadinteeda loo gali lahaa insha Allah dhulkana waa ka sugeynaa. ma aha gaadiid badeedkii ugu horeeyay ganacsi oo ku gubtay gudaha dekeda Boosaaso waxaana lagu eedeeyaa dawladda Puntland gaar ahaan wasaaradda dekedaha in aanay lahayn dabdamis wax ka qabta xilliyada ay dhibaatooyinkan oo kala yimaadaan. Xuseen Xuska, Somali Public Radio, SBR Boosaaso.